بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من أولا واحد كسلامية تحية الإسلام وتحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. marka hore waxaan u mahadcelinayaa bacdallaahi dhammaan dadkan Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo ehelka ah oo halkan isugu yimid darajooyin kala duwan kala leh ilaa iyo boqor ilaa iyo imaan ilaa iyo ugaasyo sanadiin wakiilo iyo dhammaan aqoonyahanka haweenka gabdhaha dhalinyarada dhammaantiin waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka. walaalayaal waxaan marnaba horta aan ka mahadcelin karin sida aadka u sareysa oo walaalnimada leh oo aad noo soo dhaweyseen oo aad waqtigiina qaaliga noogu bixiseen oo aad uga kala timaadeen dhul aad u kala fogfog wax kaloo abaana waan oran karnaa ma jirto oo aan ahayn jazaakum allahu khayra aljazaa. walaalayaal anigu dhowaan ayaa waxaan ka yimid dalkii meelo kala duwanna waan ka tegey waxaan u badnaa dhinaca runtii Puntland iyo gobolka shanaad meesha la yiraahdo oo Soomaalidu ay degto kana mid ah dhulka hadda dowladda dariskana Itoobiya ay maamulkeedu u joogo. dhulkaas in badan ka mid ayaan maray siyaabo kala duwan baan u maray. mar waxay ahayd xoog ogaalnimo raadin dadka dhulka degan bal nolosha iyo arrimaha jira inaan wax ka ogaano. marna waxay ahayd isbarasho dadkana bal isbarano dadka afkaartooda inaan uruurino waxay qabaan waxay dareemayaan waxyaabo badan. runtii dhibku waa iska fara badan yahay waa ka warqabtaa. guud ahaan Soomaaliya marka laga hadlo Soomaaliya xaalkeedu meeshuu marayo kulligiin waa ka dhagsantiin. ilaahay waxaan weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu dalkeennii kusoo dabaalo nabadgelyo iyo safgar
إلهي تسان ودسرنا يمكن الصومالي آد مو فقادي runtiina wuxuu u baahan yahay dad ilaahay uu kiciyo si aanan u noqon dad caqiim luqada carabiga waxaa la yihahdaa madhalays haddii ummad dhan oo ilaa iyo 10 milyan ka badan laga waayo ummad midaysa oo daacad u ah oo u damqanaysa haddii la waayo ummadda waxaa lagu tilmaamaa ummad madhalaysa ummad gurtay waa lagu tilmaamaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka inaanu naga dhigin ummad gurta ilaahay weydiisanaynaa Soomaaliya waxay u baahan tahay 20 sano ugu dambeysay waa ka warqabtaan waxaa shaqeynaya muruq baa shaqeynayay Soomaalida waxay tiraahdaa xoog waxa kugu liita kana xargaha ka gooyay xoogii marka Soomaalidu xargii buu naga jaray kow dhibaato aad iyo aad u farax buu maartay la gaarsiiyay maanta waxaa loo baahan yahay marka inay maskaxdu shaqeyso inay maskaxda dib u shaqeyso ayaa loo baahan yahay waxaa la joogaa waqtigii la heli lahaa bal ugu yaraan 13 nin oo kale oo la afkaar ugu yaraan 13 nin oo maanta Soomaalida soo gaarsiiyay gobonimada iyo magaca ay higsanayeen ninkii ugu dambeeyayna uu dhintay muddo dhow uu dhintay intaas loo baahan yahay wax kale iska weyno maanta Soomaalidu waxay maraysaa waqtiga ay ugu farbadnayd ugu dhaqaalaha badnayd ugu aqoonta badnayd ugu waaya aragsanayd bay maraysaa adduunka dhan baan soo buuxinay ilaa maanta aan joogna caalam dhulkii intuu hagaajiyay ku xisaabtamaya satellite-ka dayax-gacmeedka ummadahaasi marka inaan ku dayano wax badan ka qaadano waa laga maarmaan guud ahaan Soomaaliya marka waxaan u rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iimaanka ku soo celiyo iyo walaalnimada iyo waxa suquurka iyo ixtiraamka halka waxaan soo gaarsiiyay wax kale maaha anigu waxaan ku tilmaamaa dhowr factor baan ku tilmaamaa kan ugu horeeya waa jaahilnimo weey aqoon yari qofka haddaanu aqoon lahayn cid kale iska daa wuxuu cadow u yahay naftiisa maxaa yeelay ma garan karo wax ku wanaagsan iyo wax ku xun xitaa adduunka aakhirana iska malmaan waa sababta aan u dooranay in hoggaanka iyo talada hadda aan hayno aan ku base gareyno tacliin iyo horumar waxa weeye markii nabad la helo waa inay la socotaa tacliin iyo horumar kale bini'aadamka haddii la waayo nabadaasi nabad ma noqonayso qodobada ku xiga oo Soomaalida aad u burburiyay oo aan ku tilmaami karo waxaa ka mid ah cadaalad darro iyo dulmi cadaalad darro baahday ilaa lagu arkay meel kasta ilaa loogu shakaystay markay cadaalad darradu baahdo waxa way ummadaasi runtii ma sii jirto mana sii noolaato marka waxaas oo dhan anagoo ka shidaal qaadanayna waa in aan dalkeena si guud mar labaad aan ugu soo celino nabadgelyadiisa ummaduhu sidaa ka warqabtaan ummaduhu taariikhooda ayaa ku qortay gacantooda laakiin taariikhda Soomaalida waxaa noo qoray ummado kale siday doonaan bayna noogu qoreen ilaa na la kala qaybiyey oo ka warqabtaan la yidhi reer hebel iska ilaali reer hebel bad waxaa kasoo tallaabay reer hebel cirku ka yimid marka dadka Soomaalida anigu macallin baan ahaan jiray waxa way dadka Soomaalida waa walaalo way hal qoys baan u arkaa anigu hal qoys leeyihiin sabab badan oo taakulanaya jira waxaa ka mid ah Soomaalidu waa dad isku dhaqana isku luqadna ah isku diin ah taariikhda Soomaalida iyo adduunka kuma xusna qabiilka kale luqadda ku khasbay iyo qabiilka kale diinta geliyay midna lagu jiro si xornimo ayaan u qaadanay diinta iyo dhaqanka iyo luqadaba inta waxay keenaysaa markii aan nahay ummad isku asal ah oo walaalo ah meesha adduunka maanta uu maraya ka warqabtaan oo dalka maanta aan degannahay waxaa lagu tilmaami karaa joogna maanta America waxaa lagu tilmaamaa adduunka oo dhan oo la soo ururiyay halkan ay joogaan